جزيرة مكرن ولي وحي tahay sideeda maxaa dhacay maxaa sababay sababku waxa waaye markii dagaalkii dhacay 91 dagaalkii qaaxa ayay baaxdeen waxay galeen qaxootiga Kenya ana hadii leeyahay had saacadaas Mareykan lagu qaaday absolute maraba sababta nolosha anta ku haysto nolol aad u qiimo badan biyo waa kan hadda qode waa kan biyo macaa nadiif iskuulka kaliya ku yaala jawaab waa iskuulka kaliya ku yaala jawaab internet la'aanta waa cajiib oo bakar korgee kor hay socdi kor istagu ciirada wariyaha Soomaaliya oo meesha degan aniga ay igu soo degan oo marti u qabiil kasta ha ahaado Soomaali waxa jooga jasiirada ugu dheer Soomaaliya oo loo yaqaan Jawaay ku soo dhaw janaka geed sahan waxay la jooga Xaaji Bakari oo ku nool jasiiradan aad u dheer حاجة كسر جنكيجا. وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأقول دشين جزيرة شوية وأنا معلم كان جواي واحد ديجانت هاي ميشان لو بقول قصة قفاهان تركب وحواي شنبقول أو تركب. شنبقول أو قف أيكون الجزيرة عاد ودر. عاد ودر ها. ما شاء الله. وهكذا هذا واحد معلم بقى. معلم بقى مش جزيرة شوية. سيدا كلنا. وإمامك مسجدك وأنا قاضي شوية. أنت واته. أنت واته. جزيرة مكرن ولي وحي tahay sideeda maxaa dhacay maxaa sababay sababku waxa waaye markii dagaalkii dhacay 91 dagaalkii qaaxa ayay baaxdeen waxay galeen qaxootiga Kenya markii galeen markaas qaar way soo noqdeen anaka waa noqdeen qaarna xagga ku soo haleen dadna Kismaayo guureen qaarna Kismaayo marka sidii waa shaqo ma kordho جزيرة جواي habka biyaha u keento waa ka duwan tahay jasiiradaha kale way leedahay siyaro u gooniya inta waa ceel gacmeed gacmahay ku sameeyaan wax gaariya 2 mitir ilaa 1 mitir inta u dhaxeeya xaga mid lamida iyo xagaas way qodiyaan marka way nasiibinayaan saas uu qodi kan waa ma macaane ceel macaamaha kan kale laadiya kan hadu macaan noqdo kan ayaa loo daaminay xaafada iyo ka qubayska iyo ka cunnada kan way cabitaanka marka tusal habka saa loo qodi doon جزيرة بيها كلها تحاويان أنت لا قضاء حبتنا واكن بيانا أنت لا قضاء بيها معانا جزيرة اللي جاية سما وكا صح سال لا قضاء مركز سال لا قضاء هرت بيها بده هرت ودو ذا واكن بيها قطان كذا بعد دواي والقضاء سانس القضاء بعد كان البحينة وعلى البحينة وأنا البحينة عيد البحينة عيد البحينة هرت فيها سهرة عيد البحينة مركز عيد بيرسو بيها إيمانا يا بيها مركز ماتو واكن بيها بيها واكن الصوب هذا مركزه بيها كان حريد دوي بيها نظيف ويا نظيف والعب قراب معاه ويا لا مركز بدنا واكن اوكي هدي لكن هذا ريق اما مال دير رقلا بيا معانا الهلا سما اساسا رجلنا خليها قلب هذا كينو وخلطانك سفن ليلو بيها الا لا تدغ صولك هذا مقادنا بيا معامله كان لا بيا كان بقى انت اللي ملك له بيا مع المال نص حد صولغينه دمير انا وجهه ايوكا بيا مقلا جنا دميردان هذا ayaa biyaha geeyay biya magaalada kana rarkooda way waxa dameerka koorka lagu raray biyo waa kan hadda qode waa kan biyo macaa nadiif zaid zaid kan زائد واكن ها إله مركز قعنت إله هذا إله هو جيسي وإحنا نقول هذا سان بيها صوب هذا وأجي هذا دينك كان ديار وده لو تنعج هذا اللي بهنجرا بيودون هذا قبيس درب بحاني هذا بهنجرا كان لا يستعمل قبيس وحده قبيس وعبتانك كله كان سماه كان لو سماه أنت كان لو سماه
عيارتن عيالك عيالتي راح لها أبتي مقعة أبو بكر ده ماشان ملا إنترنت مقت سو أبو بكر هاي برد هنا عيال لماذا صح سنة بكر هودا بكر وكاري انترنت لا انت عجيب وهو بكر كر هاي سعودي كر انترنت ملا واحنا عيالك مدد هلا واه waxaan ku dhex jiraa tukaanka keliyata jasiirada Jawaay ee leedahay waxay la joogaa Axmed Yuusuf Muuse ku magac dheer kudar ku soo dhaw jannada geedisa waa dhawe bal tukaankan ma tukaan ba mise waxa weeyaan waxa magaalada dhan asaga ka haya haddaan warbixinkaasi horta dukaankan waa dukaan dhowr qaybood u shaqeeya qaybta macmacaanka uu ku shaqeeyaa qaybta daawada waa ka shaqeeyaa qaybta nolol maalmeedka qofka sida cuntada iyo waxyaalaha jumlada iyo tafaariiqda bagaashka dharka dhan walba waan kaga shaqeynaa maadaama magaaladii aniga dukaan keligay aan ka ahay marka bini'aadanku wuxuu u baahan yahay oo dhan inaan ka kaafiyo ilaahay baa wax kaafin kara inaan ka kaafiyo baan ugu talagalay wax walba u baahan yihiin magaalada weyn ay ka doonan lahaayeen in meesha laga helo maadaama ay ugu xiran yihiin dukaamo kale oo baan leedahay jasiirada kale ugu dhow ay ugu xiran yihiin meelo yar oo dad kalluumaysi ay imaadaan oo gaadiidkooda wato kalluumaysta aanan u dhoweyn meel ay wax ka iibsadaan marka culeyskii waxaan saaray inaan aniga labada dhinacba aan uga faa'iideeyo waxaa kaloo meesha jirta aniga ganacsiga kale aan ku wato qaybta kalluumaysiga aan ku wato marka alxamdulillah labada waa isku wataa maasha Allah alxamdulillah meeqa sano deganta xagga inta waxaan deganay muddo 40 sano 82gii baan halkan wadankan soo galay aan ganacsi ka bilaabo argoosta aan ka qaadi jiray kadibna xamaran geen jiray ilaa Djibouti aan geen jiray burburkii Maxamed Siyaad Barre kadib wadanku waa isbedelay kadib markaas kadib halkan baan degaan ahaan aan ka samaystay aan degay oo shaqadeedii wali sidii baan u sii wataa wax Soomaaliya ka degan aniga keligay waa meesha ganacsi ku haysto gurina ku leh Soomaalida kale waa imaataa laakiin waa dad ka shaqeysta xeebaha oo waxantiyo ama guriyo ku leh male jasiirada waxa ku nool dad ilaa 500 oo qof oo baajoona inta kale هذا اللي كسومالي باجونا لكن انا كسومالي قفكي يماده markuu kor soo istaago ciirada waryaa Soomaaliya meesha degan aniga ay igu soo degan oo marti oo qabiil kasta ha ahaado Soomaali waagas oo aan loo kala soconayn aniga aan mas'uuliyadoodii qaadayo iyo noloshooda Ilaahay baa ka faal qaadi kara inta alle ay joogaanba markaas jasiirkan waxa ku nool xayawaan ka wax cuna horta sideedaba sida waraaba dawacada eeyga maalkii male waa Ilaahay wuxuu ugu nimceeyay wax dhul socdo halaq moogi wax kale wax xoolo ka cunay male xoolo waa iska sii daaya dhul socodka ma sii ma ka wada mulay xabado xoolo waa sii daaya banaanka iska seexdaan wax la daneeyo ama la soo xareenayo ama libax iyo waraabe iyo wax ka cunay midna ma jiro waxa ku nool ari waxa ku nool dameero waxa ku nool lo alxamdulillah walahi waa nagu nimcay noloshay biyaha waxaan ku qabnaa xogaa cariiri laakiin inkastoo barkada aan iska samaysan laakiin ceelal baa Ilaahay gadaal naga siiyay oo la isticmaalo oo qodqotaa macaan oo xareeda marka alxamdulillah wax kale dib kale ma qabno anaga hada hilib xoolaad hataa waxaan u maleynayaa markaan Kismaayo tago inaan cuno inta kale waxaan cunaa kalluun firiish maalin walba luqadda hadda ma baratay luqadda aad iyo aad sababtoo waan ku dhaxnoolahay waa qasab inaan luqadii baajoona lagu hadla meesha waxaan lagu hadlaa luqadda baajoonta lagu hadlaa marka qof kasta markuu qof kasta adeegu doonayo wuxuu u baahan yahay waa ka kaafiya nibqa mooya nibqa mooya ku imaanayo wuxuu ku leeyahay mooya hal baa la qofku ku imaanayo wuxuu la biyaha maxaa la dhahaa maay nibqa maay wala bariiska intee bay dhahaan sokorta sukari bay dhahaan burka vunga ay dhahaan saliida mafuuch ay dhahaan marka wax kasta u baahan caleenta mayaani bay dhahaan wax walba u baahan basasha ku jungu maay bay dhahaan toonto waxay dhahaan ku jungu saaumo isbaaska waxay dhahaan bilibili waxyaalaha ay u baahan yihiin noloshooda luqadooda Swahili ma waa baajo waa isku dhex jiraan laakiin adiga Swahili dhankeedu ay u dhow yahay laakiin waa luqad iyaga u gaar leh waa anteenada sida qofka wuxuu iibsan karaa anteenada qofka wuxuu iibsan karaa xogaa cilwaas yar naga saaran godan ku jirnaa jasiirada goday ku jirtaa marka waa inaan xagaas ka helnaa laakiin cariireen ugu tahay
internetna internet inaan banaanka u baxno xoogaa koodaas aan korno aan raadino waay ilaa 2-3 kilomitir luga maya waa iska dhowdahay hadda buurtaas kore waa caadi wax u daawan kartaa caadi waa heli kartaa laakiin xagan jasiirada gudaheeda ma heli kartid internet okay waa hagaag meesha iskuule xarun caafimaad ma leh xarun caafimaad ma leh aniga caafimaadka ah qaybtaada caafimaadka ilaa dadka jasiiradaha kale ku yimaadaan wixii aan wax ka qaban karno waxaan ka qaban karnaa magaalada weyn oo Kismaayo u dirnaa dadku waxaan u sheegaynaa dadka haminaya dibadaha oo maanta ku ordaayo ama ka yeelay war dalkiina nabad waay meeshan qori ma yaalo xabad ma taalo dagaal ma yaalo baabuur ma yaalo habaas male meesha hartaa seexan kartaa wali dadka daada oo xanuunsan oo sokortii dhiikarka qabay iyo dhulka ay ku noolaan lahaayeen maanta xoolaha iska raacanaysa xoolaha iska sii deynaya intoo socota qabiil male waxba male alxamdulillah ilaahay baan u shukranayna dalkii waxaan leenahay marka war dadka u haminaya dibadda war dalkiina waa ilaahay nimcaasi ka dhigay ha u haminayna u soo noqdo anaa hadii leeyahay had saacadaas Mareykan lagu qaaday absolute maraba sababta nolosha anta ku haysto nolol aad u qiimo badan waay masaajidkii cibaadadii waa kan way hortaagantay masaajidka waa kan 2 kiilo wuxuu ijraa 2 tilaabo ijraa hal salaadna iga ma tagto alxamdulillah ilaahay baan u shukranay alxamdulillah ani dad badan baa haminaya inay jasiiradaha soo degaan waxa u soo degaysiin nolosha hadda waa aragteen warbixin baa ka gudban kartaa intii hadda adiga aad joogtay oo aad nolosha xalay iyo la maanta ana la joogtay wax problem ama buuq ama dhibaato nin qori wato iyo wax soconaya xabad la ridayo ama arag ma ka mamnuuc halkan ma jiro qofka wuxuu bilaadanku wax ku heli karaa waa nabadgelyo iyo noloshiisu ku heli karaa sadiq booliis hata ma qabtaa ma qabto anagu ma saxlina wixii dhiboon noogu yimaad ana ka odaya wixii Soomaaliya ana ka odaya wixii baajuuna iyaga baajuuntooda ka odaya waa sunnimaadna waa gobashii hore geed hoostiisaan fadhiisanaa kadibna waa xalisanaa wixii wax walba waa xalisanaa okay haddaan rabo inaad dhul iibsadaan ma iga gadataan aniga maya waa lagu soo dhaweynaya bas aniga ahaan waa lagu soo dhaweynaya nin walba imaan kara waa la soo dhaweyn karaa waa la siinaya dhul anaa iskale anaa qabiil iyo hebel iyo intii qadur ay ma jirto intaa rabtid waa lagu siinaa waa degaysa ganacsiga meesha harta ka kulmaysanaysa oo ka shaqaysanaysa meesha harta aadaysa waagaag ana maanta waxaan tagi doonaa insha Allah meel fog calankaygaan ka taagana dhulkayga xagaas aan dheey doonaa waa kaftamaya waa soo dhaw masaajidka arkaysaa waa masaajid keliya oo joogaay waa masaajid oo qurux anigana ayaa ka imaam ah ayaa gacanteena ku dhisnay masaajidkan insha Allah waan ku qolayga ayaan dhaqaaleeyaa haddana waa fasaxay ayaa irida u soo furay hadda waxay raashinka ay doonayaan insha Allah iskuulka keliya ku yaala Jawaar waa iskuulka keliya ku yaala Jawaar waa dugsiga primary school waa primary school isku dhexe ma qabtaan dugsiga hoose dhexe kan waxa weeye mid kamid ah galaasada ay leedahay Soomaa waa mid kamid ah galaasada ardayda meeqa galaas ay leedahay 4 galaas iyo hal maktab hal maktabada waxa ka wada bugaagta taal waaga ardayda inta ma jasiiradan kaliya ta mise jasiiradaha kale ka yimaadaan ma waa jasiiradan kaliya jasiirada wala ka dayactira la rabo dayactira u baahan tahay يا نقعويا عندنا waxaa jira hay'adda imaanaya laakiin bugaagta nalasiya iyo raashin oo WFP raashinka ayaa nagu kulmaya nambarkeena hoos aan dhigi doonaa insha Allah dadkuna la soo xiriiri doona insha Allah waan ku caawin doonaan insha Allah hadda la ka fasax lagu jira hadda fasax lagu jira waxa sabtida ayaan fureenay insha Allah haga waxay cajiib Soomaaliya ku qorteen sabti xisaab ahad isliga علمي برشة سنين ترى صومالي ثلاثة ترى إنجليش ساينس هاي كوتشا أوكي ساسا وديك ما دوي كان subject كان أيها وديكا أرديدا ما كان لكن دكسي سرا قف كوينه أنت دكسي كده مله حوالي بس بايو أما عمل كله هذا جزيرة ده كلام مرة دكسي سرا مية و dugsi hoose dhexe bas iskoolka kaligiis aan naga jira Jawaar waxaan ka rajaynaynaa inaan helno isbitaalka daryeelka caafimaadka inaan helno iyo la dayactiro iskoolka iyo iskool kale aan hadii helno iskool kale oo xagga secondary school iyo hatta jaamacad hadaan helno waan jecelnahay insha Allah ilaahay horumarka ardayda
caruurteena inay horumaraan quruxdana u jeedan hadda gadaasheedii badan maha background maha Maldives waxa weeye Soomaaliya waa jasiirada ugu dheer Soomaaliya waxa ka dambeysay muuqaalkan sponsor keda safarati ticket xaga sakeebsanay hoosna oo kaleesan ticket waxa kaleesan wax walba loo kala sida Kismaayo iyo Muqdisho aan hadda ku soo baxnay iyo hadda rabtiin tusaalahan Sweden to Muqdisho online hana ku iibsan kartaa credit card iyo Visa card Mastercard iyo EVC hayga helmaamina subscribe like comment oo muuqaalka soo socda